agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Maxamed Cabdi Gurxan ayaa tababar furay qaar ka mid ah agaasimayaasha maamulka iyo lacagta ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda kuwaas oo lagu tababarayay habka casriga ah ee musharbixinta oo loo adeegsanayo hanaanka elektarooniga waxaana kulan hawleedkaasi hadal ka jeediyay Aamin Abshir oo ka mid ah waaxda tababarka bixinaysa wasaaradda horumarinta maaliyadda waxaana ka mid ah hadalkiisii gudaha waxaan iskugu yeedhnay maanta tobanka wasaaradood u horeeyay ee majuulis laba majuulo muhiim ah oo mid yahay payroll majuulka oo ay tahay inay dhammaan mushaaraadka shaqaalaha dawladda lagu diyaariyo hanaanka caalamiga ah iyo qaabka standardka ay dunida u shaqeyso majuulka kale uu yahay contract management majuulka oo heshiisyada dawladdu ay gasho dhan si fudud oo hufan u maamulaya ilaalinayana in heshiisna ka badan paymentkii iyo lacagtii markaa heshiiskaasi lagu galay sidoo kale xiriiriyaha mashruuca BFM wasaaradda horumarinta maaliyadda Xasan Faarax oo isna halkaas ka hadlay ayaa tilmaamay ahmiyadda uu tababarkan u leeyahay agaasimayaashan tababarka ka qayb qaatay isagoo tilmaamay in loo baahan yahay inay sida uga habboon uga faa'iideystaan isla markaana shaqooyinkooda ku dabaqaan tababarka iyo aqoonta ay halkan ka barteen waxa maanta inoo shaqafa inaynu halkan ku qaadano laba module ama laba qaybood oo kamid ah systemka maareynta ama maamulka xogaha maaliyadda ifmiska loo yaqaano oo muhiim u ah guud ahaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland labadaas oo mid yahay payroll module-ka ama qaybta mushaar bixinta ee systemka nidaamkaas wuxuu maamuli doonaa dhammaan wixii la xiriira mushaar bixinta waxaan ku xidhnaan doonaa hadhow toole system ama nidaam lagu maamuli doono shaqaalaha dawladda oo ay soo wado hay'adda shaqaalaha dawladdu waxa meesha ka bixi doona ugu dambeynta ilaa account-ka qofka ayaa isku xidhnaan doona waxa ka bixi doona oo si toos ah meesha uga bixi doona dadaalo badan oo dawladdu sameysay awgeedna ka bixi doona insha Allah wixii loo yaqaan caaglaha ama dadkii gosweekaska ahaan jiray ee dawladda nidaamkeeda ku dhex jiray ugu dambeyntii agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta maaliyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Cabdi Gurxan oo tababarka furay ayaa kula dardaarmay ka qaybgalayaashii inay sidoo ugu habboon uga faa'iideystaan tababarkaasi isla markaana shaqooyinkooda ay ku dabaqaan aqoonta ay halkan ka bartaan waxaana ka mid ah dalkiisii waxaynu maanta goobta u fadhinaa saddex achievement oo sanadkan la kowsaday fulintooda waa qodobka koowaad oo ah inaynu mushaharka shaqaalaha dawladda ku diyaarino inagoo adeegsanayna nidaamkan iswada ee ifmiska la yiraahdo markii ugu horeysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu dhowrkii bilood u dambeysay ay iyadu isticmaalaysay wasaaradda horumarinta maaliyaddu tusaale u tahay barnaamij kasta oo aynu fulinayno inay fulintiisa iyo qaadashadiisa ay horsocod amba hormood uga noqoto wasaaradaha kale maanta marka waxaad bisha February hadii Ilaahay yiraahdo waxaynu mushaharka ku diyaarin doonaa inagoo isticmaalayna systemka qaybtiisa diyaarinta mushaharka